muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo saddex arrimood oo la xiriira ninka magaciisa la yiraahdo AJ. qodobka ugu horeeya saacadii la soo dhaafay baraha bulshada lagu faafinayay sawirkan waxay dadka qaar badan ka mid ay leeyihiin waa walaalkii, laakiin asagu maruu soo dhigay isla bartiisa TikTok kuma uusan qorin waa walaalkay, afkiisana kama aysan soo bixin waa walaalkay. sideed markaa ugu yeeri kartaa inuu yahay walaalkii? ninkaan la leeyahay ninkaan ayuu la dhashaa iyo waa u egyaha si gooni ah ayaan u arooriyay sawiradiisa iyo qofka uu yahay. haddii AJ uu yiraahdo waa walaalkana waxaan cadayn doonaa inuusan walaalkiis ahayn, laakiin inta asagu uusan oran walaalkay ma aha ma doonayo ninkaan inaan macluumaadkiisa aan baraha bulshada keeno, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa inuusan walaalkiis ahayn asaguna uusan sheegan, laakiin ay dad message hoose loo dhiibay ay wareejinayaan waana arrin aan base lahayn wey. qodobka labaad waa arrinta la xiriirta farta go'an ee ninkan. waxaa jirta laba scenario oo la isku hayo. maamo codkeeda la wareejinayay oo la yiri waa AJ hooyadiis dhabta ah la yiri ayaa waxay sheegaysaa in fartu ay bambaana goysay ka dhacday agaga magaalada Kismaayo. haddii aynu examine garayno xogtaasi far kaliya bamba ma goyn kartaa waa su'aasha aan rabo inaan usoo bandhigo dadka maangalka ah ee Soomaaliyeed. waa maya. haddii gacantaani ay bamba kala qarxdo bambadu xabad rasaas oo hal far la go'aysa maaha, waa inay farta kala go'daa, waa inay gacanta dhan go'daa. weli lama maqal bambaanadu saa uma shaqayso. waxaan u qabay dadka Soomaaliyeed inay wuxuun ka garanayaan qaraxyada iyo xabadaha arrimaha la xiriira. far baa bamba goysa waa arrin aan istaagi karin weeye markii si logic ah markaa loo examine garayo. hadday gacantu dhan wada go'naan lahayd haa, haddii faruhu dhan wada maqnaan lahaayeen waa suurtagal, laakiin far baa bamba goysa tanna waa caadi, sulkuna waa caadi, gacantuna waa caadi. waa sheeko xariira wey. laakiin maamada wiilkan leh anigaa dhalay ee ka dhex ooyeysa baraha bulshada oo aan saakay gabdhaheeda kula hadlay qadka telefoonka ayaa waxay ii sheegtay in wiilkan uu farta ay nabar ka soo baxay oo ay fashfashtay ilaa ay markii dambe la gooyey. waxay maamadu sheegtaa in xataa si qaldan loo gooyey oo haddii uu fartiisa soo dhaweyn lahaa la arki lahaa inay fartu si qaldan u go'an tahay. labadaasi argument markii la is agdhigo oo si xaqiiqo ah oo mangal ah markaa loo examine garayo, maamada ooyeysa ayaa xaq leh, ayada ayaana aragtideeda ay tahay midda caqliga wax garanaya u qaadan karayo. fartuntan ay ku gohonye hasan farey raayan. qodobka saddexaad aan muuqaalkan kaga hadlay waxa weeye maamadan arkaysaan xilligii ay bilowday inay ninkaani ay raadiso oo arrinta farta ay ka shanqaliso waa xilli hore. muuqaalka la wareejinayo aan dib u raadiyay ayaa waxaan soo ogaaday inuu yahay muuqaal la duubay ama la faafiyay oo warbaahintu ay faafisay 25 July 2021. waa 3 sano iyo jarjar ka hor ay maamadaasu bilowday wiilka inay raadiso arrinta fartaan ay ka hadasho. fuusta la riixaya Hebla Cali Sayba wada waa sheeko aan istaagi karin weey. waan arrin la doonayo in lagu qariyo ama lagu duugo xuquuqda hooyadan dhibaataysan. waxaase la yaab noqotay markii uu ninkan maamada ay raadinayso lana baxay magaca AJ la yiraahdo uu ogaaday in maamadu ay raadinayso ayuu magaciisa bedela. taariikhdu ay maamadu bilowday wiilka inay raadiso waa July 25keedii, asaguna wuxuu magaciisa bedelay February 7deedii 2022. 5 bil ka bacdi 4 bil iyo jarjar kadib ayuu bilaabay wiilkanu inuu magaciisa bedelo, arrintaasoo loo fasiri karayo inuu hooyadii ka dhuumanay. hore waxaan idinkugu sheegay wiilkanu ma lumin ee hooyadii ayuu ka dhuumanaya, walina wuu ka dhuumanayaa, ayaduna way la qilaadahay inuu wiilkeedu uu ka dhuumanayo. weli waxaan is weydiinayaa oo aan ku jira xog aruurin ah waa maxay waxa aanan ogeyn ee maamaduna aysan sheegin wiilkuna uusan sheegin oo keenay inuu wiilkan markuu yaraa uu hooyadii ka dhunto. waxbaa lagu sameeyay, waxbuu tabanayaa, waxaan ogeyn baa jira. waa arrinta u baahan in si gooniya loo fiiriyo oo hadday suurtagal noqoto aan si gooniya u fiirin doono.